وكا سويت قال أمي هذا وبحان إسكالي قدر يرى برامبرا هذه أمي ليري ميان مرجوغي وكا سويت قال أمي هذا قبطان إسكالي يا بونكي لعوني بود كيسا الإسكرمة بود كيسا أيام بتصندوق خبرها في السوق soomaalida tuugnimadoodii yaa war ma fi weey ka hor dadkan dowladii way dhaceen 200 milyan oo dollar bay ka dhaceen lacagtaadii oo dhan bay ku naxdo daram say daranta u haysay xagga ka nac intaynu muuqaalka u gudagelin fadlan daawada like saar xaalad culus ayaa ka taagan gobolka Minneapolis ee Minnesota dalka Mareykanka kadib markii dawladda ay soo faragelisay musuqmaasuq baahsan oo ka socday gobolkaasi Soomaalidu ay ku badan tahay iyadoo dawladda laga musuqmaasuqay lacaga aad u fara badan dad Soomaaliyeed ayaa ku lug yeeshay musuqmaasuqa loo geystay lacagtaasi dawladda ayaa waxa ay ka taageertaa dadka jilicsan iyo caruurta cunooyinka iyo kirada guriyaha hase yeeshee lacagahaasi loogu talagalay caruurtaasi yararka in cuntada lagu siiyo ayaa waxa ay gashay dad gaar ah jeebkooda dawladda ayaa baaritaan ku bilowday iyadoo dadkaasi lagu helay dambiyada qaar walow ay iminka socdaan baaritaano la xiriira arrinkaasi organisationno fara badan ayaa dacwadaasi lagu soo oogay iyadoo iminka sida wararku ay sheegayaan organisationadaasi qaar ka mid ah la fasaxay mid ka mid ah organisationadii qaybinayay cuntada caruurta looga xanimay lacagta ayaa hadeer loo ogolaaday loona sii daayay waxaana loo sheegay in ay shaqadooda wadan karto organisationkaas oo Soomaali badan ay ku xirneed oo ay qandaraasyo ka haysteen laakiin gabadhii organisationka madaxda ka ah oo magaceeda la yiraahdo Kero ayaa waxay caawa u soo diraysaa dadka email taas oo ay sheegayso sharciyo adag oo la xiriira arrinkaasi dalka Mareykanka badanaa waxay ka taageeraan waayeelada daycare meel lagu xanaaneeyo oo waayeelada loogu sheekeeyo sidoo kale caruurta yararka dadka danyarka ay leeyihiin waxa ay ka taageeraan si ay u heli lahaayeen cunto hase yeeshee dadkii Soomaalida oo arrinkaasi loo wakiishay ayaa waxa ay gacantooda ku dhacday lacagtii iyadoo la sheegay in guriyo 2 milyan ah iyo 1 milyan guriyo gaaraya ay ka iibsadeen dalka qaarkood waxaa la sheegay inay isaga tageen dalka Mareykanka halka qaar kalena ay dacwadu ku socoto sida ay wararku sheegayaan soomaalida tuugnimadoodii cadaanka taa way bareen ka hor yaa war ma fi weey ka hor dadkan dawladii way dhaceen 200 milyan oo dollar bay ka dhaceen 2 sano dhexdiisa in allah organisation bay furteen oo waxay yiraahdeen caruurta gaajeysan baan caawinaa ajaab shaqo lacagtii caruurta loogu talagalay jeebkeeba gashteen mid waliba waxa la yiri badda korkiisa buu guri ka dhistay swimming pool iyo basketball court leh in allah barso waxa la soo iibsaday baa la yiri adeer macaan inaba caadeen ajaab shaqo dadkii matqaana masaakiinta ahay marka Mareykan waxa weeyday dad laan dheerayaal ay maxaa laan dheeraha rabto noqo been markaa sheegto kugu soo ogaanayaan lacag adoo fiir maxaa dhici waayeen $100,000 waxba ma aan lama fahmi lahayn taasoo milyan baa dhacan yaa warniyo mid aan shukran soo xagan ka helaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمحل اسكو كينا بنانك برف بدن باك الدعاية ما شاء الله تبارك الله برف كاسا بنانك الدعاية حالة دوا حنطاي هوش مينيابوليس نوا اسكجا فاني واي بريهان so laughing and laughing بروبلين والله بروبلين قصر وطاك الدعاية مينيابوليس this city is another level these days قدر يرى برامبرا sweet girl Amy هذا قبطة نسقالة
sweet girl Amy hey ada goobtaan iskale ya fiicanay for you this flower lugulaha waa maqli jiray bunki la cunay boodboodkiisa la iska rabaa boodboodkiisa bunka la cunay boodboodkiisa la iska rabaa bagac alla maxaa meel lagu jabay